duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa gilgalay saaxiibada iyo cadawga bariga dhexe. Waxay ku howlan yihiin inay dib u qiimeeyaan xiriirka ay la leeyihiin Mareykanka iyo Ruushka. Intani ay horseedi doonto bariga dhexe oo xasiloon iyo in kale oo ay adag tahay in la sheego. Laakiin ilaa hadda isbedelada qaar ee xiriirka Turkiga iyo Israa'iil, Turkiga iyo Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta waxay ku socdaan jihada ay dhinacyadaasi rabaan oo ay la doonayaan. xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa u muuqda mid soo hagaagaya. Labada dhinac waxay ahaayeen saaxiibadii ugu wanaagsanaa ka hor intii aan xisbiga Islaamiga ah ee cadaaladda iyo horumarka ee Rajab Tayyip Erdogan loo dooran xukunka 2002. waxay ku naaloonayeen xiriir ciidan, amni, dhaqaale iyo ganacsi oo dhow. isbahaysiga NATO ee Mareykanka uu hogaamiyo iyo isbahaysiga istiraatijiyadeed ee Israa'iil iyo Mareykanka ayaa door muhiim ah ka qaatay geedi socodka. si kastaba ha ahaatee, markii Erdogan uu dib u habeeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ee ku aadan taageeridda qadiyadda Falastiin iyo kasbashada saaxiibada dunida muslimka ah, xiriirka Turkiga iyo Israa'iil ayaa hoos u dhacay. Israa'iil waxay ku gacan saartay dhaleecaynta sii kordhaysay ee maamulka Erdogan, taasi oo ku aadan sida naxariis darrada ah ee ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta dhulka la haysto guud ahaan iyo weeraradii military ee 2008 ilaa 2009 gaar ahaan marinka Gaza ee la go'doomiyay. waxay xaaladdu sii xumaatay bishii January 2009 markii isu imaatinka Davos ee Erdogan uu ku canaantay madaxweynihii barigaas ee Israa'iil Shimon Peres isagoo leh marka ay timaado dil aad ayaad u taqaanaa sida loo dilo. iyo bishii May 2010 markii militariga Israa'iil ay weerareen markabka uu Turkigu kafaala qaaday kaasi oo hormuud u ahaa gargaar bini'aadanimo oo loo waday Gaza oo markaasi go'doon ku jirtay. barigaasi Israa'iil waxa ay weerarkaasi ku dishay 9 sargaal oo Turkiga u dhalatay. si kastaba ha ahaatee, labada dhinac waxay u arkeen inay ku habboon tahay inay joojiyaan xiriirkooda. Erdogan iyo ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa midka kale nacay, laakiin tan iyo markii ay soo baxday dowladda cusub ee Israa'iil sanadkii hore, hogaamiyaha Turkiga ayaa muujiyay tilmaamo wanaagsan, taasoo keentay in madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog uu booqdo Ankara bishii hore. Toddobaadkii hore, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa la sheegay inuu xoojiyay muhiimadda iyo mudnaanta ay leedahay xiriir waara oo dalalkaani ay yeeshaan, isagoo ku xiray shuruud ah in Israa'iil ay ixtiraamto sharciga caalamiga ah ee qadiyadda Falastiiniyiinta. labada dhinac hadda waxaa dhib ku haya duulaanka Ruushka ee Ukraine, waxaana mid walba uu damcay inuu qaato door dhexdhexaadin ah, inkastoo lagu guulaysan waayay ilaa hadda. xalinta colaadda midkoodna si toos ah uma cambaarin ficilada Ruushka, laakiin kalsooni darrada ay wadaagaan Vladimir Putin ee Ruushka sababa juqraafiyeed awgeed lama dhimi karo dadaalkooda lagu hagaajinayo xiriirkooda. sidoo kale, Erdogan wuxuu hadda u muuqdaa inuu garwaaqsaday in uu u janjeero dhanka Putin dhowrkii sano ee la soo dhaafay aysan ahayn mid caqli gal ah, waxaana uu xiriir dhow la samaystay hogaamiyaha Ruushka si uu hoosta uga xariiqo sida uu uga carooday Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub inaanay si xoogan u taageerin howlgalkii qallafsanaa ee ka dhanka mucaaradka kadib afgambigii dhicsoobay ee 2016 kaasi oo ka dhan ahaa isaga. markaasi kadib, Erdogan waxa uu ku baraarugay in ay muhiim u tahay in Moscow xaggiisa uu aado isagoo ka kaaftoomaya Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub. markaasi kadib waxa uu qaaday in uu Ruushka ka soo iibsado gantaalaha S-400 ee hawada isku marta, taas oo kicisay carada Washington. isagoo arrintaasi ka jawaabayana, Mareykanka ayaa Turkiga u diiday iibinta diyaaradaha dagaalka ee F-35, taasoo Ankara ay horay u bixisay. ka hor qalalaasaha Ukraine, labada dhinac waxay u dhaqaaqeen inay xaliyaan khilaafkooda, iyadoo Mareykanka markaasi wixii ka dambeeyana uu go'aan ku gaaray inuu xoojiyo xiriirka Ankara, waxaana uu ogolaaday wax walba oo ka hor uu u diiday maamulka Erdogan. haddase waxaa midaysay qadiyadda colaadda Ukraine iyo Ruushka iyo munaasabadaha muhiimka ah ee ay tahay Mareykanka inuu u wajaho sida dalalka qaar loogu qancin karo qorshahooda. Erdogan wuxuu leeyahay sabab wanaagsan oo isaga fogeeyo Putin, kaasi oo aan nag jalaq u siin dadaalkiisa ku aadan xalinta diblomaasiyadeed iyo in uu mudnaanta siiyo iskaashiga Turkiga ee NATO. caadiyan xiriirka Washington Ankara waxa uu ka caawin karaa oo kaliya hagaajinta xiriirka Turkiga iyo Israa'iil. geeska kale, Mareykanku waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa xiriiro xoogan oo uu ku doonayo inuu dib ugu soo celiyo xiriirkii uu la lahaa Imaaraadka Carabta. hoggaanka Imaaraadka Carabta ayaan ku faraxsanayn jawaabta uu maamulka Joe Biden ka bixiyay weerarka diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee Xuutiyiinta Yemen ee bishii January ee la soo dhaafay. markaasi kadib,
imaaraadku waxay ogaadeen in jawaabta iyo falcelinta Washington ay tahay mid aad u gaaban oo waliba gaabis badan uu ka muuqdo si loo cadeeyo jabka ay ka qabto xulafada Mareykanka. Abu Dhabi waa laga aamusay jawaabtii ay ka bixin jirtay duulaanka Ruushka ee Ukraine. waxay ka aamustay inay u codeyso 25 February shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagu cambaareeyay duulaanka Ruushka ee Ukraine. inkastoo tani ay ahayd mid la fahmi karo iyadoo imaaraadku uu qarka u saarnaa inuu bedelo Ruushka oo ah gudoomiyaha bilaha ah ee golaha. si kastaba ha ahaatee diidmadeedii codbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee 7 April kaas oo Ruushka ka joojiyay golaha xuquuqul insaanka ayaa si cad u cadeeyay mid walaac leh Washington si loo hagaajiyo burburka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la kulmay dhaxal sugaha Abu Dhabi ee awoodda badan Mohammed bin Said, waxaana lagu soo waramayaa inuu raaligelin ka bixiyay dib u dhigista Washington jawaabta ku filan ee weerarka Xuutiyiinta. wuxuu carabka ku adkeeyay qiimaha iskaashiga Mareykanka uu la leeyahay imaaraadka, wuxuuna xaqiijiyay in Mareykanka uu taageero buuxda ka geysanayo qatar kasta taasoo imaaraadka iyo dhowr wadan oo kale oo khaliijka ay u arkaan Iiraan. xiriirka ayaa hadda la sheegay inuu ku socdo wadadii saxda ahayd. dhinaca kale inta badan xulafada carabta ee Mareykanka ee gobolka ayaa u codeeyay si la mid ah sidii imaaraadku ugu codeeyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. waxaa ka mid ahaa Sacuudiga iyo Masar kuwaas oo ay weheliyaan Israa'iil. waxay sameysteen tirarka ugu xoogan ee saameynta Mareykanku ku leeyahay gobolka. tani waxay kaliya ka dhigan tahay niyad-jab ballaaran oo Washington ka dhan ah. inkastoo xiriirka Turkiga iyo Israa'iil uu hadda hagaagay taasna loo aanaynayo isbeddelka maamulka aqalka cad ee waqti xaadirkan ee ku wajahan siyaasadiisa Ankara. maamulka madaxweyne Biden waxa uu u baahan yahay inuu dib u habeyn ku sameeyo oo uu sameeyo aag badan oo dheeraad ah haddii uu doonayo inuu helo istiraatiijiyad sax ah oo ku wajahan bariga dhexe.